qaar ka mid ah culimada iyo waxgaradka Buuhoodle ayaa maanta booqday dhibane muddooyinka u dambeeyay ku xanuunsanayay magaalada Buuhoodle ee xarunta gobolka Cayn isla markaana wax ka qaba afka oo marka ka dambaysa si balaaranaya sida idin muuqata. Dhibanahani ayaa lagu magacaabaa Cabdirashiid Aadan Haaruun waxaana in badan jiifay deegaankani Buuhoodle isagoo la dhibanaa xanuunkaasi. ugu horeyn waxaa ka warbixiyay marxaladaha uu ku sugan yahay ninkani Sheekh Cabdilaahi Jaamac Haaruun oo kamid ah culimada diinta Buuhoodle. sida ka warhaysan bana annaga xogagaal ururkan xogagaal way magaciisu waxaan soo ogaanaa dhibka jira iyo meesha uu ka jiro waxaan u soo gudbinaa cidii wax ka qabanaysa ee Ilaahay subhanahu wa ta'ala dartii iyo xuquuqul insaanka wax ka qabanaysa. marka maanta waxaan idin haynaa fursad qaaliya oo dahabiya oo u baahan in laga faa'iideysto. walaalka aanu booqanay waxa la yahay Cabdirashiid Aadan Haaruun waa xanuunsan yahay xanuunka aad arkaysaan afka kaga dhacaydiisaba waxaan u soo bandhigaynaa inay ka soo qayb qaataan sidii ninkaas caawimo loo siin lahaa loogu geyn lahaa dhakhtar loogu qaadi lahaa dhakhaatiir badan oo gudaha ah baa la mariyay sida ehelku noo sheegay sida ehelkiisu sheegay dhakhaatiir badan baa la mariyay oo gudaha ah marka dhakhtar dibadeed in loo qaado mooyaan gudaha waxba waa looga qaban kari waayay qarashkii dibad loogu qaadi lahaa dhakhtar lagu marin lahaa inaynu ka wada qayb qaadano inteena gudaha joogta iyo inta dibadda joogta iyo qaaraadka adduunka meel kasta la joogo cid qof kasta muxsina oo niyada ku hayay inuu sadaqa la baxo ama ehelkiisa u bixiyo inay hawsha ka qayb qaataan. ugu dambeyntii waxa halkaas ka hadlay Caaqil Maxamed Ismaaciil Guro oo isagu walaalaha islaamka ka dalbaday inay gacan u fidiyaan dhibanahani. sida culimada ay sheegtay ninka aan soo booqanay magaciisa waxa la yiraahdaa Cabdirashiid Aadan Haaruun inaad iyo aad culus weeye waxa weeye nin gurmad culus u baahan weeye walaalayaal dadka islaamka ee daafaha adduunka jooga waxaan ka codsanaynaa ninka in loo soo gurmado in loo soo dadaalo waxa weeyaan sida culimada ay sheegaysay qofku waxa uu la baxo waxa isaga oo adduuniya aakhira anfacay weeye. Ilaahay subhanahu wa ta'ala quraanka wuxuu lan tanaalu birra hatta tunfiqu ma tuhibbun mimma tuhibbun marka waxa weeyaan qofku ilaa uu waxa uu jecel yahay Ilaahay dartii u bixiyo liibaan gaari ma xaqiiqiyan ninkan xaqiiqiyan liibaan weyn baa lagu gaarayaa mid adduuniya mid aakhira ah walaalayaal fadhiga laga kaco ilaahayna maartay hada ka abaal mariyo inaad soo tartaan hadalkeen intaas kaga baxay. Assalaamu calaykum. Cabdirashiid Aadan Jaamac, Som News, Buuhoodle.